xoolooyada qali in la isu keeno oo tala la gaaro policy paper marketing issues marka khayr Allah insi intaas ugu Thank you, Governor Ugas. Dr. Kabu. waa mahadsanta Hashim waxaan sheekadan sheeka aad u cusub anagana waxa weeye waxaan kormarmaray haynaa wax weyn oo ka hagaagana ma jirto runtii haddii shaqo weyn aan laga qabanin waxay u baahan tahay number 1 dadweynaha countiga ku nool waa inaan maxaa leeyahay baadkii waa yaraaday biyihii dhibku meel walba biyaa laga dhigay marka xoolihii meeshii biyi jiraan ay aadayeen marka baadkii si xunaa loo isticmaalaa mar walba abaaro xun because of climate change dhib badanaa imaada marka wixii dadweynihii inii loo sheego wey war 100 neefaan qabaa macno male 100 neefaan qabi jiri anaa dameertoo qaba maanta ka fiican marka xoolahan saa u waa marka sheekadii aan hadda ka hadlo range management waa our livestock maxaa la yiraahdaa extension officers waa inay shaqo bilaabaan waa inaad dadkii meel walba public participation loo sameeyaa sub county walba lagu naqtaa dadkii la fahansiiyaa markaa ka bacdi xoolahayni maxaan seen u isticmaali karnaa maxaa faa'iido noo iman kara midda kale the national government nafteed waa failures when it comes to livestock dan kama laha especially pastoralist people waxa uu fiirinayay in dadka xoolo dhaqatada loo yaqaano ay ku yaqaanin waa kuwa farmerska oo dairy animals qabaan iyo kuwa door meel dhigtaan iyo kuwa wax kale waxnaana oo other livestock ma aha laakiin dadkayna pastoralist waxba uma arkayaan so taana waa inaa xoog la saaraa soo dad annakii hadda waxaan ka bilaabaynaa ku waxaan haysanay saan u isticmaali karnaa effectively to the best of our ability ani mid ma aaminsani beentan oo mar walba sheegayno waa inaan iska dhaafna xoolaha waa dhoofinayna meel walbaan geynayna inteed geyni maxaad haysaa ya xoolahadii waa jiran yihiin xoolahadii lama hagaajin system waa inaa loo hagaajiya xoolahan waa at the local level in la gadaa oo meel isku geeya holding grounds loo sameeya at every ward at sub counties ade maxaa la yidhaha abota meel hataa xoolo la dhigo lama hayo kan hataa haddii la sameeyo hadan the way it is slot house inuu naqana runtii Your time is up, Dr. Conclude. marka waxa weeye ani waxaan arkaa abotaaga the issue is first xoolihii see loo macnayn karaa soo that haddii la keeno meeshaan waa inaa suuq loo raadiya shaqo badan wey laakiin annakii at the local level xoolahayni seen ku gadan karnaa seen suuqa Kenya kala ku yeysan karnaa how do you start cooperatives here at this level programkaas aan ka bilowno gadaalna aan sii socono Thank you, Dr. aniga waa la fasaxaya Thank you. way may fasaxdeen Aywa. khayr Allah insi Thank you. ما شاء الله مركب وقتي وسوكي دريتهم عاشم horta arintan oo pastoralism arintan oo xoolo dhaqatada horta waa wax run ahaantii dadkeena ugu muhiimsan waa waxa anaga hadda maalka noo ah dadkeena dhaqameed Soomaaliyeed markuu qofka faani wuxuu dhigi 100 halaad baan leeyahay marka la dhigo gabar meherkeedu u badnaa waxa la intaas oo neefgeel baa laga dhiibay waxay ahayd lifestyle iyo dhaqan baynada hadda waxaad arkaysaa rag Soomaali oo reer wajaaro taajiriin ilaahay baa taajirahay waxay samaysteen beerooyin voy ayagii baa nin billionaire ayaa geel dhaqanayo Nairobi ka stigi beeris geelisi u dhaxtagi because maskaxdi we need a paradigm shift dadkeeni ayaa dhaqankii wuxuu noqday xataa kii lacag haystay kii lacag haysanin ba xoolo rabaa kii xataa warshad furi lahaa nimanaad waxaa jirta Soomaaliyo haysto hanti ku filan ay warshad ku furaan laakiin geel bay ku gadayeen voy bay geynayeen because geelas buu iska soo arkay labada habeen buu iska soo seexani marka dadku waa inaan aan bedelnaa fikradeena 2022 la jooga adduunku waa isbedelay sideen lacagta noola siinay oo countiga ah aan dadkeena uga faa'iideyn karnaa sifa lifestyle muhiim oo gudbaan horta macquul ma aha in la dhaho qofka xoolahiisa yeelan because qofkii hadduu iskuul gelin waxba uu baran magaalada uu iska soo dego we are going to promote urban poverty dib kale abuurayna xoolihiina waa ka soo wareynaa magaaladana fakhri buurood intaasoo buulaan yeelanayna waa fakhri so waxaa two plans we need a short term plan and a long term plan first I suggest a very radical drought resistance or a drought maintenance problem what do I mean waxaan rabaa xoolo dhaqatada inay ogaadaan in biyo la siiyo coos siiyo xoolahooda ka baabi'in dowladda wax weyn ay dowladeeda qabani waa inay dadka horta xoolo ka baabi'in tan labaad
waa inaan long term plan waxaa jira hadda dowlado badan oo adduunweynaha oo dairy iyo cheese economiga dhan uu yahay aan samayno warshado aan caanaheenno ku alxaano hataa midka geela oo homogenization loo sameeyo oo Kenyada kale aan ka geli karno Your time is up. in the immediate goal I want to make sure dadkeena xoolo dhaqatada ah in dowladda ay in hiiliso oo abaarta in kaga hiiliso xoolaha in ka baabin Thank you Governor Cilmi. Assalaamu calaykum aniga waxaan dhihi lahay waa runati inay xoolo dhaqada lafdhabarkeena ah lacagta aan gelina waa yar tahay xoolaha waxaan u malaynaa waa county function livestock waa county function saddex walxaad ay u baahan tahay mid waxaa waaye livestock management waa shaqada veterinary iyo tababarka xoolo dhaqatada taas kulli hadda aan ka horan subinay livestock association ayaan hagaajiyey waxaa kaloo subi livestock marketing drought management authority oo ku xiran tahay waxyaalo like livestock offtake marka aqoontadan leeyahay maanta waa ka hadli karaa laakiin hadda maxaan propose garaynayaa dowladda cusuban in la hela cooperatives maxaa sharci Kenya ku jiraan every ward except kuwa magaalada oo xoolo dhaqatada u tashadaan waxaan dhisahaynaa waxaa maaragtay waxaan bilaabay markaan wasiirka ahay livestock abatamation abatama shaqeynaya inuu helo supply noogi supply wuxuu ka imaan karaa corporate amarka hortagana cooperativeskaas marin karaa cooskan fooda banka hada loo suubin kara yaana nasanahay waxaa suuq joogto laga hela daktar wuxuu suuq joogto laga helaa saddex tan aan qabnaa tugudahana tuu Nairobi waa sitiyaasha waaweyn dhul Nairobi dhow oo maxaa cooperative wajahan waa la geli karaa oo sida nidaamsan xoolaan oo ku keeni karaa xoolo agriculture haddii kulli waa subsidize so county waa subsidize garan karta yaa waa gudi kartaa laan LMD la dhahaa livestock marketing waa hagaajin karaa livestock and livestock products investorska subsidy waa la siin karaa dhul waa la siin karaa ninkii maaragtay warshad maaragtay maqaaraha subinaya waxaa la siin karaa waxaa la badan lagu kala kaalmeyn karaa maantooda aan ka hadli karaa plan aan u hayaa maadaama waxaan u malaynaa livestock marketing council cabaska CEO ka haya anaa bilaabay waxaan ogahay intaasoo mashruucoon bilaabay laakiin hay-ad ahaan aad ku subini markaad ku subisa dowladda countiga siduu maxamed gaban cabdullaahi uu sheegay waxaa waaye way soconi haddaad ku bilowdo oo sharciga u hagaajisa gabanaasha kaa dambe waa wadayeen marka waxaan aaminsanahay 5 sano inay la heliyo livestock sida ku shaqeyn lahayd. Time is up. Thank you. Professor. Thank you, sir. As I say at the beginning, Somali. sorry. And saan u sheegay markii debatekan la furayay horta professorfa waa nomad waa geeljire waa xoolo dhaqata arrimaha xoolahana wuu ogsan yahay waxaa jira oo la fahmin waxaa weeye isbeddel baa jira waqtigii aan xoolaha raaci jiray banka waasow ilaa qorof xaraar dhulkii maanta sidii ma aho meel kasta waa tuule meel kasta waa bir maxay ku tusaysaa in bedelaad waxa loogu yeero horumar development samaho laazim maciishadii waa bedelmatay maxaan samaynaynaa markaan hadda aan ku soo wareegaya wajiha west markaad ka baxdo bariish oo u socoto hodhaadho banki waa soo geli ilaa aad ka tegayso giriftu waa dabeel iyo siiga waa desert waa banki waa soo dhawasaas maxaa laga qaban karaa war israa'iil soo desert mahayn maxay sameeyeen xoolo dhaqato ahayn carabta inay ku raac jirteen maxay sameeyeen maxaa noo diiday in technologiga iyo horumarkaas dhaqalaadka aan samayn maxaa noo diiday waxaa noo diiday waxaa waaye reewajeer waa la siray leadership ay doorteen saa daraaddeed annaka isku daran soomaho reewajeer waxaa idin leeyahay waxaa lagu maamaahaa
doqonta iyo doqonka godka laba jeer laga qarina sooma war godka le haddana maslaxa laga qarinin bedelaad baan wadnaaye soo doorta warfa sifa arrinta laga hadlaayo meel aan u geyno oo meel u dhigno waana samaynaynaa waxaa idin tusayaa dabeesha aan sheegayo beeraha ka wato biyaha aan keeniyo beeraha ayaan samaynaynaa adduunkan wada kaasanaynaa xiriir baan leeyahay sida haddaa idiin sheegay 4 milyan idoo nin iwaydin meel dhigayn aan dalbay aan soo wadnaa waan soo wadnaa dantiina garta waxaan sheekada ka baxa warfaa soo doorta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu No campaigning, Professor, please. Ahmed, Governor Ahmed, please. وعليه السلام arrimaha xanaaneynta xoolaha marka koowaad waa arrin oo 100% devolved function ah oo waa arrimaha kusoo wareegeen countiga kasoo wareegeen dowladda dhexe oo la rabo inay countiga wax ka qabato waxaana wax ka qaban karaa nin fahansan xoolo waxay yihiin oo xoolo dhaqata ah ninka asagana waa weerar waa nin asaga naftiisa lo iyo geeli ariba leh waalidkiisa iyo ajdaadkiisina sidaasoo kale ay lahayn maanta adduunka xaaladda jirta sidii hore wax loo dhaqani jiray maxoolo loo dhaqani jiray looma dhaqani karo abaarihii baa bateen dhulkii la daaqaya kulliba deegaan laga dhigay cudurkii baa batay sidaa daraaddeeda in waxaa waaye dadkeena xoolo dhaqatada ama guuraaga ah ay naftooda la qabsadaan oo wax ka bedelaan maxay ka bedelayaan dowladda horta wax bay inay ka bedesho waay maxay ka bedelaysaa in la joojiyo waay deegaamadan faraha badan ee iska socda ee maalin walba tuulo la dhisaa MPs women reps senators governors kulli waa ku wada jirnaa qaladaadkaasi inaan joojino tuulooyin cusub la dhisaa oo dhulkii la daaqi jiray la daaqo fikir conservancy la siimeeyay sabuuli oo kale baan aad fikir aan u jeclaada in lagu daydo sidaas oo kale dhoolal daagag la sameeyay inaan tagi karin oo midda koowaad midda labaad xoolaha sidaan u dhaqan jirnaa xoolaha waxaa tiri waa baydaare koofigeeni tiigeeni inaan u aragno xoolahani on commercialize garayna oo kun naf aad iska wadanina in yara qiimo lah oo aad kontrooli karto aad ka gawni karto markuu dhib dhaco waa loo baahan abaaraha hadda dhacayaan marka saakii subaxi waxaan la hadlaya cabdi oo kilo degan bishan dhexdooda ay ka dhimatay 4 naf bishan dhexdooda abaara lagu jiraa sidaan xoolaha dhimanaya marka waxaa la rabaa xoolihii markii ay qiimo leeyihiin in la gato aniga waxaan qabani karna waa waxaan qabani karnaa Your time is up. Conclude. waxaan qabani karnaa su-aalaha na weydiisay waxaa waxyar waqti in lagu wareedoro oon ka hadalno khaasatan sida hadda abatwaga ee wajeer ku yaal abatwa waa kiriyey November last year wuxuu u baahan yahay lacag aad iyo aad u fara badan waana run arrinka aad sheegtay shardi yar ayaa laga rabay countiga in desalination inay ceel ka qodaan iyo waxyaro desalination plant costing 15 million ayaa laga rabay this year budget waa loo geliyey laakiin follow up markaan ku sameeyey that money is not available lacag maaha both qalabayntii laakiin waa loo loobi garayn karaa waana la helaya lama laakiin sanataga lama qabo oo waa la import garayn geeleenna hadda wajeer suuqiisa waxaa la aadiyaa ilaa kismaayo iyo muqdisho lug baa halkan loogu qumiyaa geela wuxuu wajeer waxaa laga iibiyaa soomaaliya ka jirin in uu geelaada qiimo ka yeesho dowladdaada jirtana uu qiimo ku waa nasibar waa waxaan ka karno madaxda waa waxa wax ka qaban karto waana waxa aan wax ka qaban doono aniga isdagadan insha Allah taala Thank you. Governor Ahmed. Bismillah. Horta xoolo la tallaalo oo lacag ay ku bixineen donors oo dowlad ay tallaasho muddo dheer waxa ugu horeysay countiga first termki xoolaha waa in la tallaalo xoolaha intuu baniaadamka u baahan yihiin ay u baahan yihiin ayagana Thank you for stopping for the adhan. Thank you.
waxaan marahay xoolaha intii binaadamka u baahan yihiin marka idaaradda livestock ay shaqayso oo maxaa la yidhahdaa extension services ay samayso oo schedule regulations waxyaalaha la sameeyo midda xoolaha la dhoofina waxaan aadnay anaga Sacuudiga waxaan heshiis la soo galnay Jeddah Chamber of Commerce ayaan agreement la soo galnay in ay abatuagan ay fiiriyaan oo amase share ay ku lahaadaan amase ay maaragtay oftek aan kula heshiino waxaan nagala shaqeeyay nin la yidhahdo Ibrahim Khamiis oo markii isaga deputy ambassador ahaa delegationeeda meesha ku tagnay markii meesha ka baxay oo imaadeen oo la xiriireen countiga qaf la fadhiistay ay waayeen markii dambe waxay la fadhiisteen niman private oo Laikipia ka sameeyna ku yaga hadda xoolaha dhoofina xoolo Laikipia nin beertiis lagu sameeyo ayaa la dhoofin haya soo xoolo abatogan la dhoofin karaa abato wax weyn kama dhineen wax weyn oo ka midna waxay ahayd equipment in la geliyo makiinadii lagu xiro oo laga shaqaysiiyo ayaa ku dhineed waxaan aaminsanahay waa la soo staadi karaa ama soo bilaabi karaa barnaamijkii waa laga shaqaysiin karaa abatoga iyo dhoofiskan waxay samaynaysaa in xoolihii dadka ay beecay ay u yeeshaan aspectkii kale oo midda kale oo qaybta kale oo abaaraha la dagaalankooda shaqada ugu weyn oo governor ummadan aad u qaban karo runtii waxa weeyaan in abaaraha waqtigoodii as dadku u gargaaro aniga campaignki waxaan ballan qaaday idaala oo CC leh oo disaster iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa aid drought management inaan sameeyo oo inta shay hadda laga hadlayo amse abuur ha ahaato amse xoolihii oo la gelinayo takaaful ha ahaato si reer miyiga xoolo markay ugu dhamaadaan ay maaragtay gacmahooda iskor saarmin oo waxa ay ku soo noqdaan ay u yeeshaan insha Allah. Thank you very much. أنا وحنا من سنة وحي بدي والله شيء عن شيء ربي مدة هرتو هذا disease surveillance يو treatment مرة وقاعدني هذا والله الله أبو طاقة شغال والله قبل كراها لكن حولها لدوفينا وحي بهنين حوله أو standard كلو بهنين جاري مركا وإنا مال وبلغ هلا حوله أو جردي لقوا هذا مرة أنا للداوية مركا خدم بطلي كرتا يدري كرتا واحد جروي kuwa Soomaaliya laga yahay dad programkooda ka tashada waa wax tuugni meel kale si kale loo gelinayo it's not something legal oo hadhowtayna dib kale keeni karo way marka ani waxaan qabaa shaqadii waa qaban karnaa waana la qaban karaa waa run laakiin first waa ina sheekadii cooperative-kii oo markii hore sheegay maxaan faa'iido ku darsaday xoog la siiya sifo ay xoolahayn dhulka loo qaadanin because hadda waa la iska aruursanaya raqiis lagu helayaa tan kale waxa kale in la sameeyo muhiim ah si ay xoolihii isu bedelaan wax la yiraahdo cross breeding yeah geela meel kale laga keeni kara oo caano badan ariya laga keeni kara Pakistan oo kale oo caano badan dada yara meelahan oo kale oo magaalayaasha oo xoolo yar haastaan yaa in cross breeding lagu sameeyo marka hadii caanihii neef eri uu daba jirkeen oo 20 liters oo ku siin karo kii kale 200 duurka hay waa isbedel maskaxdiisa so we have to have these changes and waxayna ku imaan kartaa on education thank you very much horta labada fikradba waa la ogolahay laakiin arrin yar baa jirta waxaa loo baahan yahay arrintan horta arrin governor kali u baahan maaho it is something that needs a community wide effort hadda walaalkeen Axmed ilaa khayrasiya wuxuu sheegay in Jeddah ay tageen wonderful thing wuxuu dhahay dawladda labaad baa ka faa'iideysan waysa Laikipia baa ninka faa'iideystay ma ahan inuu governor kali ahaado inuu soo dhax galo war shaqadii aan qabtay war wixii haddaan dadka keenay bal shaqadii hala dhameystiro waa fiicnaan lahayd somo private sector laakiin in haddana reer wajeer la siin lahaa inta Laikipia la geyn lahaa marka hadda qofkii la doortaba midku ahaadaba dadkeenan arrintan yaan governor kali lagu dhaafin because this is the real crisis we have to modernize our society and we can't modernize without fixing the livestock issue labo alxad rabaa midaan horta uu sheegay hadday functional civil service ay jirta governor kuma xirnaateen budgetkooda ay qabilaayeen shaqadu way sii wadi lahayn meeshi markuu governor uu wada teamku wada lahayn laakiin midda labaadan sheegi rabo waxa waaye suuq dibadda waa jiraa ambassador Saudi kii hadda tagay iyo kii Kenya xagga joogay dheen shuruudooyinka dad heshiin 2 million xaj sawir oo qaadan karnaa
so cooperatives ka haddaa la hagaajiye oo cooperative walba lagula xisaabtamo qiyaastuu keenaya meeshan kaydka aan sheegayo oo maaragtay laga subinaya cawska iyo wax walba 3 function ay qabtaa one waxaa waaye meeshii lagu fiirinayo xoolaha inay ay caafimaad leeyihiin in kala quarantine ahaan ay noqoni loorida meesha ka qaadaan straight suuq ay geynayn keena noqoya life ninka raba laamaad geyna Nairobi kuwi ku qal rabana 3 suuq waa noo furan yihiin midda kale oo leeyihiin waxaa abaar ka hortag midda saddexaad waxaa waaye xoolaha markii la geyn raba suuqo qofkii lahay meeshuu gelinaa waa cayilaayeen waa la baaraa marka ka dambe ayaa la wadaaya waana shay aad u sahlan maxaa ward walba ayagaa sheegaa dad expert taga carrada la fiirinaa meesha caws ka bixi kara meel daaqa ka bixi kara marka shay adag ma aha suuq gelinta xooleen آخرkeed waxay huraynin in la helo dad private sector ku jiro oo diyaar u ah in ay maalgeliyaan commercialization of livestock barnaamij hadda waxaa jira la yiraahda drive oo World Bank markii yataan meeshaad ku jiro ee kala shaqeeyay Horn of Africa Initiative 4 wadan company la yiraahda KDC Kenya Development Corporation ayaa diyaar u ah inuu bixiya deyma oo dad ranches ay ku sameystaan haddii meeshan la helo dad ranches samaystay oo xoolihii ayaga buurin kara oo maaragtay intii la geyn lahaa meelaha Voi Taveta iyo waxaasi kuwii kaleeto waqtiga abaarka markii la gaaro ninkii maaragtay baadiya iska joogay kuwii ayaga ka iibsin karo xoolihii maaragtay kana asaga u noqon karo supply abatwaga ama se dhoofsan karo marka dadkeenan waxaasto sidii wholesale loo furnayo waa in mindset change la sameeyo in lacag la geliyo xoolaha oo lagu daaynin kaliya dadka tabarayda oo banaanka ku fiijinayo horta annaga heshiiska dowladahan u soo galnay qoladan waxay u imaanayaan dowladda ay ahayd haddii gabanaga meesha ku jiray kaalmo uu u baahneen una u baahan yahay waxaad ka tari karta ma laho wasiirkana kii anigu taga u ahaaye asaana meesha tagay inaad meesha kasii wado waa ficneed waxay ku noqoni the tone at the top baasha hadday kor ka dhimato waa wada dhimini Thank you very much. Somali so? Okay. ومحسنت حليم وارون شركة كان عندي سوق مجينجا وشركة ونصيب درائه وآدنا أحن هدو بروح بني آدم كدم بي وحاني كرا ونصيب درائه إسأجلي روح أنا شالي مركا ماشي تجو حنا إله قدافينا وحول بنا إله كوين مركا waxaa kali tan labaad waxa weeye maamulinkaas iyo dadka meesha ka shaqaysanaya waa ina loo gargaara waa ina shaqo weyn laga qabtaa shalay marka aan tagay oo wax weydisa wax leeyin la qaban kara marka aan waxay yiraahdeen culimada ya pay bill-kii culimada lacagta noo geeyeen marka insha Allah waxaan ani ahaan bixin karo ayaan ogeyna wixiina siyaasad ma aha waa maxaale sadaqa way marka ilaahay sadan hana wadi taa laakiin mid kale oo ku farxay anigi inkastoo dib soo gaari shaqadii si immediately oo shaqada u qabsadeen oo ay dhulkii u dhisteen which is an improvement because hadda mar hore nin walba hawi ka qabay dhulkaas laakiin hadda hawidii waa dhamaatay waxaan dhihi lahay ninkii hawi qabooy oo wax dhulka ana lahaa sheekada iska iloow hadda ha sabro maadaama maamulkinkii iyo dadkii meesha ka shaqaysanay waa dhisteen dhulkana ayaga iska leh xaqaynu yeelay inta soo sanana meesha ka shaqaysan jireen marka haddaad dowlad iyo ninkii waraaqay qabo oo iska buuqa oo dib u gaari hadhowtay dambe waa lala tashan karaa laakiin maamulkiinka waa dadaaleen dadkana ha lala shaqeeyo meeshana sidii shaqada looga qaban lahay dowlad aniga haddaan soo galo ilaahay ogolaado program weyna meeshan ka qabanayna shaqana waa la qaban doonaa insha Allah
ها اوكي ها ما mahadsantahay ani waxaan maleynaa markaad soo fiiriso waqti waa mar hore iga cabsiisay tan kali waxaan ka codsanaa reer wajeer waxaan rabaa in la soo doorto maxaa la soo dooranaa ani sanataan idin ay waa ogtiin 5 sano intiin qayli on county anu qaylid waa ka warqabtiin lacagahan hadda lagu faanayo ninka dadkan kulli inay isticmaalaan rabaa ninkii soo ridi waa ninkan ayagoo waxaan on dawladda weyn isla marin waa ogtiin ilaa madaxweynahan isku dhacnay sheekada daraadeed uu yiri lacagtu waa in laga gooyaa meeshaan noodistan xoolo dad ma jiraan xoolo iyo geedadaa jiraan tiina waan ka diidnay marka ninkii intii dhib ah maray oo madaxweynihii iyo dadkii kulli oo si xun u arkeen lacagtii uu keenay oo haddana si xun loo isticmaalay hood u jeedin adiga naftiin lacagtii waa ana in lagu soo wareejiyo bal sidii wax uu qaban lahaay oo qabto number 2 waa sheeka corruption aniga shaqadaydu waa zero waxa way zero tolerance on corruption haddii corruption musuqmaasuqa marka nin oo intaas soo sanaan ku jiri siyaasad 25 sano waa ku jira hadda laakiin liguma shay khibradtan hebelas dhacay khibradtan hebelas wax ka qaatay khibradta ta contract hebelas meeshaas ka qaatay waxaan u sameeyay ma jirto marka ani meeshan xoolo rees uma soo socdi adinkan wax idinku qabanaa lacagtin idin soo ridsida idinku shaqayn lahay saan sanadtan nimid idinku shaqeeyaan gabanaa nimid idinku shaqayna hal soo deerto bal 5 sano aligu doo waa mahadsantiin حليمو 1 minute كان كحوغي ربنا تكبرتها بعد هذا بعد marka anyway في arinta horta sokomjinga waa musiibo waa arin musiibo ah markaad fiirisidna waa wax oo laba daraad meel barsad baan ka hadlayay oday baa wuxuu yiri maama waxay tiri dumarkeena waxa la dhahaa bay tiri alif wax male naag wax male madaxay xanuun kiraaman ka tibe waxa ku yiri masaas ba hadda wajeerga wuxuu yiri alif wax male naag wax male marka horta dadka wax meesha ku xoolo beelo waa dumarkii maamooyinkeeni iyo dhalinyaradeenna labadaba waa labada group oo dawladihii hore kulli ay hilmaameen we have a massive youth unemployment and we have massive poverty among our women dhalinyaradeenni waa countiyada ugu xun shaqalaanta reer walba waxay leeyihiin 3 amar gabdhoodo ama wiilo oo degree la diploma guriyaas ka fadhiyo maamooyinkiina waa dadka la iloobay completely ilaa hadda mahmaha laga dhigayba in la dhaw calif wax male naag wax male suuqan aniga waxaan ka hadlay inta suguban waxaan rabaa suuq sida Hargeysa maalin baa ku halqabsado waxaan tii Hargeysa ka dhacday suuqeena ka dhici lahaayeen dadkeeni way ku dhax baabi'i lahayn waxaan ku fakarnaa habeenkaas habeenimay waxaan dhaceen hadday daraar dhici lahayd waxaan ka hadlaynaa konton 60 ama 200 oo meeyda marka first we need to modernize that market I'm going to commit aniga dan governor noqdo ilaaha iyo alfa suuq modern baan ka dhigi oo exit leh entry leh fire extinguisher leh oo nidaam had siren leh oo meel la dhawaajiyo hadduu dabdhaco dadka looga baxo because waxa ka daran hadduu dharaan nagu dhaco tan labaad maamooyinka waa in lacag ay ku shaqaystaan la siiyo oo deyna ama grant ah oo international agencies-ki donors-ki aan la heshiino oo lacag u keeno taas waa tii suuqa aniga waxaad igu dooranaysaan baan iin sheegi raggan dhinacyaha agagaarka iga fadhiyo walaalahay ana wax xun ka sheegayn waxay u badan yihiin rag fursad la siiyey oo already lagu xil la saaray dhibkan ka hadlaynana waa dhib 20 sano ilaa 30 sano wali nagu jira xoolo dhaqataad ka hadasheen abaar bad ka hadasheen biyeed ka hadasheen iskuuladii baad ka hadasheen waxaan kulli wax cusub mooho waa dhib sii jiray marka waxaan dhihi lahaa intii raggan walaalahayn wax ay qabteen hortay ay qabteen ilaahay khayr ha ka siiyo laakiin waa waqtigii ay nafiska dhaafi lahaayeen qof kale meeshii uu ka sii wado because khibrad cusub baa loo baahan yahay khibrad cusub ayaa loo baahan yahay ayaga waxa ingiriiska waxay ku maamahan you can't teach an old dog new tricks raggan si hore wax u barteen ayagoo xataa khalad ba aan sameeynin mararka qaar nidaamkii hore lagu soxday ayaa iska sii khaldana ayagoo rag xun ahayn oo wax xun aan ka sheegayn marka safartan 2022 baa la joogaa fursad cusub keena qof cusub oo ayagiina tixgelinayo advices baan ka wada dhigaynaa kulli xataa our honorable senator xataa our honorable senator maadaama uu noo dadaalay advisor security iyo gaari iyo waxa la siini international agencies inuu la soo shaqeeyo kuwa kalena wasiiriin baan ka dhigaynaa wasiiriin baan u baahanaa marka gaabanaha anigu dhaafa raggan aan dawladda sare u dirsanno jazakallahu khair ana in shaqeyni assalaamu calaykum wadaan maartay suuqa waa masiibo in siyaasi laga dhig maaha waxaan siin karno waa siinay waxaan hay'adana waa la hadalnay waa shay reer wajaar laakiin suuqyaha kulli aan qabna qatar ay ku sugan yihiin suuqyaha kulli siduu siyaad sheegay waa inay maartay loo hagaajiyo meelaha bulshada inay lahaadaan nidaam oo hadduu dab dhaca ama masiibo ku dhacda looga bixi karo oo lagu kaalmeyn karo dowlad laciif haysta ma hataa lacag in loo gurma ahayn waa inay dowladda ay hagaajisaayeen aniga maxamed waxaan qabanaa
maxaa kugu soo celi siyaasa waay waxay ugu soo celi Soomaali haddaan nahnay waa dhumahaynaa waxaanu dhumahaynaa muddo dheer shay anigaan ka mid ahay oo ummaddan dadka da'dayda kulli ay ka mid ahay 20 kana soo socday markii dowladna la siiyey dowladdii weli qabiilaysi dadkan aa kala qaaday markaan qabiilaysi dhahaa iyo qabiil waa kala qabiil waa shay fiican waa shay la isku aqoonsado waa shayga aan soo haysan si fiican waa loo isticmaalka qabiilaysi nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxaa siri waa qurun waa uduguurguur taas in la baabiyo see lagu baabi'inaa inay dowladnimo la hela waan ku celcelinaa shaqaale dowlo oon qaf u ahanaynin oo markay shaqaynaa reer wajeer kulli u shaqaynaa Soomaalida education national government markay ku jiraan markay UN ku jiraan si fiican ay u shaqeeyaan shaqadoodan waa ka adag yihiin waxaan aaminsanahay county waa la subin karaa marka dowlad cadaalad ah oo dadka u siman yihiin oo cid walba ka muuqato oo waxaan is rabnaa waa dowladnimo waxaan qabanaa nidaamka lagu qabanayna ma sheegay nidaamkaas waxa waaye arinta inay governor briefcase ay noqonin oo wax governor la guura ay noqonin markaad polisiga sheegto oo shaqaalaha shaqadooda ay qabsadaan awoodooda la siiyo tababarkooda la siiyo kii gafana shaqada laga qabta way hagaagi maxaan leenahay Soomaali waxay tiri ama aqoon gada ama ugub gada aqoonti waay inta waxoo la wajaar laga sheegay waxaan u malaynaa aan hoostaal ka shaqaynaa dhib markuu dhacay waa dhaxgalay abaara dhacday dukaamaan ka aruuray hay'adaha wajaar wada imaade waxay ku imaada cilmigaas waxaan ka bartay dhibkii dhacaba hadaa soo dhaxgelin ood sugto markii shaqa lagu dhiibo inta dhib oo wajaar ka dhacday nabad noqotaa abaar noqotaa taariikhda fiiri inta meelaan joogaba waa dhaxgalay cilmi badan aan ka bartay maxay waxa lagu leeyahay maxaad qabatay waxa la qabto waa jiraan laakiin isuma imaadayeen sidii dowladda county-ga ay iskugu imaadi karta dowladda county departments ka hagaajin kartaa oo maartay shaqada kule midda xoolaha soo gelintooda oo koonto company la hagaajin karaa ay reer wajeer leeyihiin oo company-ga kale oo dibadda ka imaanaya sidoo walaalkay Axmed sheegay ay shares reer wajeer cooperatives-ka ay shares ku lahan karaan businessman shares ku lahan karaan oo fikradda lagu bedeli karo ilaa dowladnimo la hela waxa shaqeynaa ma laha wassalaamu calaykum waa mahadsantihiin midda u hore saan u sheegay luqadda af ingiriis ugu sheegay markii debatekan la bilaabayay kow caruurta wajeer ku dhasheen oo imtixaanka maraan secondary school college ilaa jaamacadda dowladda cusban oo soo dooranaysaan oo professor uu gabana ka yahay ka bixinaysaa cunigi tuition school fee kala kama bixinayne haddii waalidku uu sabool yahay hataa gaadiidku waa laga bixin caruur waxaa jiraan jaamacado soo dhameeyeen ama college soo dhameeyeen oo guryihii qaraabada joogaan ama Nairobi ama Garissa meel kasta Kenya gudaheeda caruurta waxay shahaado fiican haasto dowladda shaqagelini aan soo dhisi doono ama waa la maalgelini sifa ay ayaga u shaqaystaan caruurtaas waa rag iyo dumarba wiilasha kala xuma marka dhalinyarada dhaho waa rag iyo dumarkaba dumarka waa xibinta saldhigga reerka caruurta waxa soo kari ayaga waay iyo walaalahood iyo ragabo dumarka il gooni waa loo eegaya waa la maalgelinayaa maalgelintaas ayaga ka imaani waana la maalgelinayaa waxaa kaloo ogaataan wixii kaloo development sector ama caafimaad ha noqoto ama biyaha ha noqoto ama xoolaha xanaanada ha noqoto kudi wax alla wixii laga qaban karo dadkaasaa qaban doonaa iyo waa laga shaqaynayaa su-aasha meesha taalla waxaa waaye lacagtan iskuulka laga bixinaya carruurta lagu shaqaalaynayo lagu maalgelinayo dumarka lagu maalgelinayo xaggee ka imaani waa lacagtiidii idinka xaday 10 sano lacagtii la xadaayay wax xaditaan la dhaho way dhammaani haddaad warfaa soo doorataan waa mid u hore midda labaad waxaa ogaataan dadka loolamaayo horta eega waxay yihiin war ruuxa fiiska gabana wajaar fariisay waxaa loogu celinaya muxuu yahay 3 ruuxa loolamaysa oo xafiiska fariiseen hadday wax qabanayeen marka ay joogaan maxay u qaban waayeen ta labaad ruux la soo doortay ama wasiir ahaa ama MP ahaa ama senate ahaa muxuu wax u qaban waaya marka xafiiska uu jooge
sheekada ka baxa reebajaaro siyaasaddan beenta idinku qabaayo ka fiirsada haddaad rabtaan isbeddelna wuu adag yahay laakiin waa la gaari karaa haddaad rabtaan nolol cusuban haddaad rabtaan inaan wajeer kow nidaam cusub u bilaawno idinkaa idin taallaa dantiina garta rabbina ila tuso professor faasoo doorta bedelaad baa bilaabanaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin arrinka suuq mugdi iyo musiibada dhacday waxay apologies arrinka ka dhacay soko mujinga waa musiibo waanan ku raacsanahay walaalaha hadlay in la siyaasadayo ma aha dad hadday ka dambeeyeenna kolley waa ayaga ilaahaygooda laakiin haddii si qadar caadi ay ku dhacda waa iska arrin natural ah waa inay dhacaan waxaan leenahay dadkii maaragtay ku waxbeele ama dhibab ay kusoo gaareen meesha sidaan horaanba u sheegnay waan idin garab taagannahay insha allah culimmadii iyo dadkii u dhaqaaqayana waan la kulannay wixii ilaahay naga soo qaadana waan u dhiibnay waxaan ku dari karnoo kalena sidii baan u garab istaagaynaa laakiin waa in xal oo permanenta loo helo arrinka waqtiga gaartaba laguma noolaani karo in maanta uu suuqa gubto haddana berrito u gubto haddana saad dambe u gubto ma suuragelayso maalin walba lagu xoolo beelo looma guri karo maalin walba lacag marka waa in xal permanenta loo helaa suuqaqa iyo arrimahaas tradena waa devolved waa in countiga insha allahu tacaala governor axmed cali mukhtar haddaad soo doorataan suuqo mujinga ma ahaanayo sida hadda uu ahaa dhibab ka soo gaarayna ma soo gaari doonaan insha allah waan ogsoonahay hadda already dadkii waxay bilaabeen dhismo waanan aragnay in caymis hataa wax kale dan la gaarin ay ku jiraan oo waxay ahayd hataa county ayaan u baahanin laakiin structureska ka dhisnaa iyo dhulka ownershipkiisa dhammaan ma geli karin intaa markaan kasoo tago weerar waa deputy governor gini 4 sano joogay anigu maanan saaf garaynin as a governor hataa 1 sano 9 biloodaan joogay laakiin meeska aad ka wada calacalaysaan dhammaan ninka idinkaga fara dhowdhowani ogsoon oo xallini kara sanad gudihiisa waa weerar pending billska dadka ku asheeka ma fahansanay uu lahaa professor warfa dadka qaar ay ka dhaadhacsan tahay inaybay jirin xoolo ay ka maqan yihiin reewajeer mashaariicda badankooda qaarkooda waan kor istaagay nin ogsoon baan nahay dadka ay ka maqan yihiin xoolaha nin la kulmaan nahay oo shakhsiyaadka naftooda ogsoon ay wax ka maqan yihiin waa dhibabka jiray ka mid tahay maanta arrimaha xoolaha horaan baan idin sheegay kuma sii noqonayo caafimaadka 9 biloodaan joogay isbeddelka aan keenay waxaa ka mid ah shaqaalihii oo demotivated ahaa oo xafiisyada aanan joogin khaasatan health sector galabtii subaxii la dhaariyay galabtii ku xigtay shaqada ay kusoo wada noqdeen isbitaalka waad ogtihiin xaaladiisa hadda iyo markaan imaanaynay sidoo oxygen baa laga soo qaadayay ceelwaaq oxygen wuu supply gareyn karaa to the country koronta la'aan baa loo bahalkaynayo dhib uu ka jiray the whole count magaaladu supply gareyn karaa adigoo raalli ah 2 su'aalood baan isugu kaandartay marka 1 daqiiqo bas aan codsanaya marka waxaan rabaa idinkumaba dheerayna 1 daqiiqada inaan ka yareeyo laga yaabo arrimaha jira iyo dhibabka jiro nin fahansan bay u baahan tahay waad maqlayseen walaalkeena cilmi functional civil service hadduu jiro wuxuu dhahay continuity baa jiri lahaa kuma raacsani I agree with governor Ahmed waxay ku xiran tahay leadership civil service even now waa good the very good staffka meesha jooga countiga dad wanaagsan oo merit badankooda lagu qoro waa laakiin leadershipka wax bedela madaxa hadduu ure even civil service ka hadduu wanaagsan yahay wax weyn oo tarayso ma laha marka waxay u baahan tahay bas governor daacadda oo si cadaalad wadanka ku dhaqaayo corruption free ah oo dadkii dhex jooga aan ahayn pilot visiting governor aan ahayn bay u baahan tahay ninka isagana waa weerar marka waxaan leenahay codkiina insha allahu tacaala weerar iyo professor Nyanyur Aisia yaanan la halmaamin madaxweynihiina waa Ruto
بسم الله أنا قاعد نسيب كي يكون نغطينا أنا قدام بيه أنت رمز كالس كده ولا لي تنسكم جينجا ولا قال لي إن واحد عوايد عين دبك سكستو كوي مان كرا قبا وحلين كورنتا أماركتا قبتان كيني كرتو لكن مقالة وحن قلت جاي دبدم الشغينايو أو هير سرقه أو هل سنة أقاتين لسوها جيو بيها كتورة بقول متر دبكو حلو دمين واي دبدمسك بيما لهين حدي دبدمسك كلي بيا يكجور لهين قف دد تواد برنان كتغني ددك توبرنا اي مار كور تغنان لهين سوقا ودبكا ولا دمين كري وحي مامل ku xiriyin intiina meesh fadhidana gargarka dhinaca ka qaatay walaalayaal waxaad u gargar kartiin aan wada gargarno kulligaan insha Allah taala qarkaan waxaan kari karnaa waan bixin raggan kulli waxay leeyihiin wax baan qabanaynaa aniga hadii laga cabsanaya wax baan soo qabtay reer wajar ay sheegayo wixii dawladda dhisneed aan ku baabin waxa waaye sanam la yiraahdo qabaayil reer heblow hadda meeshan saliid baan soo marnaynaa haddii adiga aad shalay qayb ka qaadatay in qaf shaqaha inaad bixisay qabiilnimo ku aad ogtahay in aad waxba qabanayna aad u keentay ee dhinaca bad ka leedahay soo agarma haddii shalay iska kay dhaafi lahay maanta wax la isku haysta meesha jir lahay wax dhisan aan qafkii aan maaragtay iga qaaday aan u dhaxli lahaa ilaahay ma qorin baan dhahna hadda fursad baan leenahay countigan wax weyn oo laga dhaxlay national government ma laha haddii qabiilaysi civil services ka jiri national government waa ka jiri district headska cidoo ay wada ahaayeen waa dugsoontiin inta badan maana siyaasiyana ka dhigay sideetameeyii ka hor wax waa fiicnaayeen professionalism kada walaalkii uu sheegaya maba jirinba hataa ali 90s kii la hadda dhexdooda countiga ku soo yara noqotay ee walaalayaalow baabuurka maalinba ninkii wadi aqaan ayaa loo dhiibaaye experience 5 sano ah oon ceeb lahayn oo Kenya kale ugu aqoonsatay Uhuru oo mucaarad ku ay ugu aqoonsaday walaalahay laakiin ay maaragtay xasidnimo waxay ka tahay ba ay aqoonsaneen ayaa haysay idinka ihili soo dhisaan ihili aan ihili insha Allah taala aniga meel wax laga aqaan ayaa maaragtay meel wax laga bilaabana aqaana 6 bilad sharafeed aan xafiiska ugu soo tagay biya ligu siiyay ICT user ligu siiyay revolving fund ko sharia compliant ligu siiyay surveyga magaaladan aan u sameeyay oo 13,000 oo blood aan survey garay ligu siiyay wixii hadda waa isku dhaxayeen ونميو إليك عبسي سو عليا يا سوساز ما شنت الدم بمرك كوان متكوت مدونا فيريا قفك لما أغانو ما في عنانا قفك لما أغانو بل قف والبنا ماشي أسجو يصير لو أغانا أنا أغانو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله waxaan u malaynaa 1 minute rebuttal laba ahead waxaa waaye mid waxaa waaye waa run meeshii axmed ugu tagay way ka hoose laakiin foundation ku dhisay waxyaala ay ka kobigareeyeen countigan yaa jira oo waxyaala uu bilaabay weliba dabayaaqada 2 sano u dambeeyay yay countigan teamkan cusban ay la wareegeen waxaan leenahay that countiga in la soo celiyo civil service ka waa la diidan yahay waxay nin walba wuxuu leeyahay wax walba waa the top maqli topkaas waa inuu qofka horta ogolaada inay ay ku dhisneen countiga qofka asaga inuu waa run hadda tuugaheen hadda ma aad wax walba aad saxi laakiin waa inaad ogolaata awoodda leedahay in la qaybsado awooddaada waa in la qaybsado oo shaqaalaha dawladda ay lahaadaan taas ma jirin soo raqiis ay noqotay qofkii kale soo gala inuu burburiyo waxaa haddii departmentska ay jiraan haddii ay habaasooyna giriftu gute tarbaj ay jiraan qofkii ma lacagtu buu ka yareyn karaa waxba ma leen kareen shaqaalaha hadday madax banaaneen hadda instruction ku wada shaqaynayeen governor intii la dhilay job description kaada waa kan waa ku celcelina kasaan u yeela shaqaalaha headmaster schoolka shaqadiisu uu og yahay kii hale waa la wada arkaa kuwii kale lagu fiirina marka waxaan leeyahay in mar walba qofkii soo galaba waa inaan helna professional civil service waa run qabiilays waa la geli laakiin see looga bixiya waa inay jirta system oo madax bannaan oo shaqadaas qabanayo oo qabiil walbana waa inuu ka muuqdo waa ogolahay
waa inay oo Soomaaliland u nahan waa inay cid walba ay ka muuqato markay ka muuqani waa inay wixii bayaan oo u arkaan inay tahay kulli waa ogole laakiin haddaad awoodda adiga baa ku wata oo adiga ma ogi qof kale jirin qofkii contract la siina lacagta adiga bixini qofkii maartay aad siini oo contract driven projects ay jiraan meel u socona ma laha Soomaaliya inta aan soo sheegno wassalaamu calaykum ani waan soo koobi laba arrin baan dhihi rabaa qof hadduu ugu horeeyay shaqo oo uu ahaa qofkii ugu horeeyay fursaddaas helay sida hadda walaalkeen gabana Axmed taas waa historical record wax la bedeli kara ma aho laakiin mid waan ku haystaa qof kaloo fiican igama daba imaan karo taas macquul ma aho dowladdii labaad ayaa tiisii hore gool ka dhigtay because tii labaadaa burburtay waxaa la rabaa in tii hore iyo tii labaad labadaba ani ra'yigayga dhinac la iska dhigo hoggaan fiican oo cusub oo meeshii shaqada u gaarsiiyey laga sii wado inaan keenno marka it is true waan u ogolnahay shaqo fiican buu qabtay laakiin midda labaad ayaa ka sii fiicnaan kari lahayd haddii qof fiican la heli lahaa marka aanan dhihin hadday dowlad madaxweyne fiican ay qabto uu dhaho wax ani iga dambeyn doono ma jirto dowlad ani iga dambeyn doonto ma jirto taas macquul maaha marka waxaan rabnaa inaan fiirino wixii labada qof ay qabteen annagana aan helno fursadtii aan ku sii wadno khaasatan arrintan mashmuuc cilmi uu ka dhawaajiyo civil servantska waa run iidana laakiin midaan isagana ku haystaa civil servantskan during Kanu regime way jireen first government kana way jireen civil servants alone cannot solve our problems waxaan nahay dad pastoralist ah oo Soomaaliya oo dadka Kenya kali shaqo ay qabsadeen ay meesha toosin karino odaynimo iyo farsamanimo in lagu wado civil servants kali arinta ma sixi karaan dadkeena hadda ninkan wuxuu qabtay qof baa qabiil u sarifi hatta hadduu qof professional oo qabiil hebel u keeno waxaa la dhihi maxamed cilmi wuxuu qofkaas u shaqeysay qabiila marka waa arrintan farsamo waxay u baahantay both professionalism iyo odaynimo qabiilad in la isku wado marka insha Allah dowlad cusub aan helno siyaadna gabana ha hada jazakallahu khair thank you waana duhur raali hada one dowladii hore dowladii hore oo national government markaa before devolution waxa way isbitaallo waa shaqeynay AIU used to go up to dispensary level waa ogtiin shaqadii oo socotay county government soo gashay walaalkeen waa shaqeey laakiin tii waa burburi bahashii inta la keen waa laga soo qaaday meeshii waxaa la keenay decentralized wajeer lagu soo celi wixii Nairobi laga keeno wajeer la keeno inay ilaa dispensary aadan la rabi bedelkiis xagga sii geyn lahaa intaas ku xiri horta taa dhib ay keentay hospitaalihii waa baaba'een asaga waqtigiisa waa socdeen laakiin because asaga systemkiisii oo briefcase oo asaga injaaj u ahay waa shaqeynay amarkiisa waa soconay ka dambe amarkii waa socon waay tan dhib ka danoo keentay waa taan marka I agree with Maxamed Fai one thing you have to empower the people who work the CECs the chief officers waa inaa la empower gareeya waa ogola anoo ogoltaas adigii haddii laakiin dictator tood maalin kortaagantu shaqo ma qaban karaan so waa inaa sharci la hagaajiya to show that nimankan inay responsible yihiin oo county assembly amar la siiyo that you cannot just sack arbitrarily or transfer arbitrarily chief officer shaqeeyo lacag ku diido hadda transfer siiso ku kale hadii meel kale geyso shaqadii waa inaa la joojiya sifo ay dawladii ku shaqeyso thank you very much مهما حجر صومالي رتقا دمبي رتقا هو رساقاتي ليه سماهو كرب شدان مقاشان وروحا قبلها هدو كربتي هي كان هو سنة كرب سمرغناي واحد وي رتقا دمبي رتقا رساقاتي سوليه هي وقت كيباتي 207 لسو دورت ما لسو عطان ان بابورتا وتأتوغا لدهو لاستاجيناي او اسكرتا لقبناي ايه ولا سوتان سمو maxaa ka dambeeyay markii Raila ay silent gareeyeen kariito murungiyo ayuu korabshadana bilowday soo waxaa la socotaan ruux xil soo qabta xil u dhibina rawajaaro daga waa qabtaan inta waa qabtaan dantiina garta ruux gabana noqda wajeer ina hadana ku celisaan idinka asu daraha sameeynina ruux xil u dhibteen ama wasiiraha ama biyaha أما سنتها حل أودي بيننا إذا كإسقابيسينه
رجالو إنها كلا فردتينا قرطة لح روح بقى ماشي فرد هذا لح روح أفر حلبة سومرين كتربها متكشنات نفتسي سبيان كشاق هاي وليه دكتور بس دكتور هن روح بين شيء محاكم أنا رجالو إنت وقفت تاني واحدة عدم ماشن بروسا كجا بروسا صدرت وجير بدلالا سميدينا دولة على وارفعوا قامي سودس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's not shakhsi, it's ethical issue. It's ethical, it's not shakhsi, ethical issue. I'm sorry. بسم الله. تن بروفيسور وحقوقه ويرى حد قدبان في الآية إنه apologize قرينا وقعد سنينا وحن ربا أرنك ولكن دكتورك وش شيء civil service هذاي قبنا قوحود هاي وأفلاسي إن يلبي اللعبة county government أدبا نور عسنا أرمها سوى يسيجرين county government كهورتوث قار كنا responsible أرمها سنا هذا دت كان كدحمدنا وحا هذا أن كبدلينا نجرنين وفي عنتها توبضنا ويفرنتها مر والبو توبة بنركها وأنا كفر أحسنها إن قرسنتهين إن جباب أما الدنبية كسوق الشين ودنك مركا وحوا دنبية اللي كسوق اللي نفت هذا كمدة civil service كسيجري district دي يشقين جرين إن قبيلة يكون شقينين وسيدو شيء يجافنا أي لا بالله بين county وجران weaknesses وأنا صح the first 5 years the second 5 years أكحمد لكن still سيدو شيء يوسيد وواحد فيكس كرين كرو لبض بحقهم كتيرهم ولقف عناني كرا بوث لبض ولقف عناني كرا لكن civil service هالشقينا governor يو وحيس بريفك سكوتو نيروبي سكجرو أو سو فيزيت كرينا يوم مركاي مي بالعكس صار عدو كلي كاونتيغا أي civil service وشقينا أحوك مجران سي كاونتيغا employees كا حتى بوا competent people دتكي شقين لها ودن كان واحد بدل لها already كاونتيغا وشقيان waxay u baahan yihiin bas ah madax wanaagsan. السلام عليكم. بسم الله. ها ولا ليال. هرت maaha ani wixii li barbar dhiga kaliya inay tahay dawladda iga dambeysay. 47 county Kenya ajirte. idaarad walba oo madax bannaan oo county-yaal isbarbar dhigta ama midka ugu horeysay iga dhigi jirtay ama kii labaad iga dhigi jirtay tama la sheego. waxaa la tartamay county-yaasha kale maaha inaan maxaa cabdi dawladdiis kale tartamay tawata midda labaad sheekadan yani macnaha Axmed waa maamul adkaaya asaa dhigtay tahay lacag yaa la siina yaa la bixina waxaad governor determine garan jiray ma ahayn waa la ogsoon yahay county-ga wax ka jiray ninkii lacag ka maqan tahay waxa istigi jiray PS finance office-kiisa systemka loo fiirin jiray lacagtaada taariikh heblow ayaad qaadina la jiray dadaan aniga aqaan county ka helay lacagtooda ayay heleen sheekadan kale dadka la gelinsiina oo dadka barkiis hadda ay rabaan inay wax ku helaan oo leeyihiin dawladdan hoos u dejinayna ana horta u dejiye xafiisyaan sameey wardki foundation kan u sameeyay hadda waqti isiin lahayd waa ku bixi lahaayeen sub counties baaburan wada gale waa laga shaqeynay lacag petty cash oo lagu maamulan siin jirnay hadda wixii aaway waa maaragtay waa dhimatay midaan hadda la leeyahay paymentiga aan geynina sub counties iyo wardskana been taas waxa lagu sameyn karaa kaliya in sub county-yaasha ayaga horta internet ay lahaadaan in sharciga la yiraahdo PFM-na la bedela dadkan waa iska hadlaya kombiyuutarada ukaadi sug hoja ukaadi administratively ukaadi administratively like word kama yelan give me time let me respond administratively dawlad please administratively dawladda hoos waa la dejin karaa and that's why aan u sameynay ward
in maayno village joogtaa la rabay laakiin kombiyuutaraha lacagta lagu bixiya countiga ma gadan karaan dad finance meesha fadhiya la weydiiya waxaa supply gareeya national treasury passwordka dadka if misgeli kara waxaa supply gareeya national treasury waana limited per county so waxaan samayn karnaa aan dadku sheegna waxaan samayn karina AIs hal bixi waa ogolahay dawlad hoos la diyo waa ogolahay laakiin sheekadan ma aragtay lacag baa wordka daadsanaan iyo waxaani wax jira maaha dadka been aan loo sheegin No, fairness. They repeated twice. Fairness, be fair. They repeated twice. Be fair. Be fair. They repeated twice. I was given one chance. They repeated twice. Rally how? They repeated twice, madam. Mheshimiwa Ahmed, please, Prophet, please. Mheshimiwa Ahmed Abunai, the word pen. Okay, walaalayaal haddaad beenta dhibsateen hay wax aan jirin oon meesha ka jirin aan la sheegin okay Up to the world level, they have the capacity. It is up to you. But it is up to you. Thank you. Please, we have come to the end of the function. Let's appreciate the 7 aspirants and they are coming on us. That is Honorable Dr. Hassan Fuje and Mohammed Abdi. I've shared with them the invitation, and none of them has really even replied to my message. So the 7, let's appreciate. We hold hands together for fair, peaceful election for Wajir County. Let's hold hands together. Leaders, show us good example as good leaders for this county. The public, let's appreciate and hold hands together. Please, let's hold, please. Peaceful election for Wajir. Wajir is greater than individuals. Wajir is greater than politicians. Peaceful election, one Wajir. Peaceful election, one Wajir. Thank you very much. Thank you very much. All supporters, thank you very much. Our audience, thank you very much.